banaanbaxanii maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa lagu taageerayay doorashadii uu ku guuleystay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo noqday madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Baay Bakool iyo Shabeellada Hoose. Banaanbaxan ayaa waxaa ka qayb qaadanayay maamulka gobolka iyo kan degmada, bulshada qeybaheedii kala duwan, siyaasiyiin, odayaasha maamul sameynta Koonfur Galbeed Soomaaliya. Dibadbaxni ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee lagu taageerayo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, halkaas oo dibadbaxayaasha ay ku soo bandhigayeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ay ku muujinayeen taageerada ay u hayaan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan. banaanbaxan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta Koonfur Galbeed Soomaaliya. dowladii Koonfur Galbeed oo madlisini madaxweynaha Liinguwaali Shariif Xasan Sheekh Aadan bulshadii ku dhalatay Koonfur Galbeed doorti in la ka taageero la muujiyo shucuurta shacabka oo lahanti dowle rabitaansho iyo kalsooni iyo qaban hoggaanka iyo dowladanka gooyaan Koonfur Galbeed Soomaaliya oo muddo lahanfadi ilaahay yaa ka mahadsan inaan suurta galo dowladii maamulka dhismi maydama dowladii Soomaaliya taageerto wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha si degdeg ah taageereen yoona maadgaan jeediya may kala mudana in la waso dowladda Mareykanka oo dowladda adduunka guwinaysa sida degdeg ah in taageerto arrimaha dibadda ee Mareykanka eedan kama adnagaan waan sugaani xaflad la ka taageerayo maamulka cusub ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waana liinka hambalyeeyo madaxweynihii horeeyay ee Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo geeko iriidun unsurna federaalkii dawladii horeeyay oo caalamka aqoonsata oo madaxweyne sheeneeyay mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan in arday mahadnaga dadka arday reer Koonfur Galbeedna aan ka hambalyeeyo aqoonsiga aqoonsadeen dawladoogii ee caalamka aan ka faradhubanay ama ka wiinay oo ku mid ah dawladda USA oo Mareykanka liingoradaw dawladda Ingiriiska ama UK liingoradaw boqortooyada may kala arday faday in arday ku mahadnagna UN-ka saas oo kale dawladaha Ethiopia, Kenya, Djibouti oo arrintaas aan hambalyeeyeen waana taageereen. waa markii ugu horeysay banaanbax lagu taageerayo Shariif Xasan Sheekh Aadan ee ka dhacay magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay tan iyo xilligii la doortay Maxamed